markaa waxaan oo lahaa Saleebaan oo halkiisa guba waxa la wuxuu yiri qurux kuma sidan karo mindina kuma sari karee sanka buro ku taalay maxaa kugu sameeyaa inaad yaro waxaad noqoto buro ummadda inuu ka dhalanay sharafta la sanka kaga taalee ummadda sanka uga go ilaahay baana wax ku siiyo arsaaqata dhantirayso ninka la yiraahdo Saleebaan Cismaan Xasan arinta uu ka hadlayay waxa ay isugu jirtay laba mowduuc wuxuu la hadlayay nin korneyl ah oo la yiraahdo korneyl Doolaal oo hore miidiyaha uga cabanayay ciidanka qaranka arrimaha ciidanka qarankuna waa arrimaha siyaasad ku shaqo lahayn oo aanay ahayn in dadkan ciidamada ahayn ama aan shaqadooda aanay ahayn ay dhaxgalaan anigu arinta korneyl Doolaal waxba igama qusayaan waxba ka odhan maayo gudoomiyihii arrimaha amniga iyo difaaca golaha wakiilada maadaama aan ahayna mowduucaas mid anigu aan saxaafada ahaan kaga hadli karo maaha imana qusayo arinta labaad ee ninkaas ka hadlay waa mid aniga ku saabsan arintaas baan kalbad ka odhanayaa oo ninkaas Saleebaan Cismaan Xasan la yiraahdo waxaan arkaa in ganacsadaha caanka ah ee la yiraahdo Axmed Cismaan Geelle oo dawladda Jabuuti ay haystaan isagoo jawaabaya oo ganacsadaha eedeynaya waxaad arkaysaa nin korneyl oo ciidanku ka tirsanaa la hadlaaya isagoo jawaabaya waxaad arkaysaa nin xildhibaan ah oo golihii wakiilada shaqadiisu ahayd jooga isagoo jawaabaya waa ninka sidii ninkii riwaayadda ku jiray loolan jiray Xaaji Mataan beel walba iska galayeen briig balahay magaca uu sheeganaya sultaankuna inkastoo aanu jirin oo sultaanka guud ee qoyska iyagu yahay Sultaan Yuusuf Maxamed Xiiro isna la doortay beel sultaannimada uu kala yimin anagu aan ogeyn haddana dibata naga haysato maalin walba ashtakiya cabasha nooga timaada dadka aanu shaqo ku lahayn ee iska maagayo Soomaaliduna waxay ku mahmahdaa sankaaga oo buro ku taalo lama gooyo wuxuu nagu noqday buro sanka naga taala maalin walba waxaan shaqo ku lahayn oo eedabu soo hooynaya markaa waxaan oo lahaa Saleebaan oo halkiisa guba waxa la wuxuu yiri qurux kuma sidan karo mindina kuma sari karee sanka buro ku taalay maxaa kugu sameeyaa inaad yaro waxaad noqoto buro ummadda inuu ka dhalanay sharafta la sanka kaga taalee ummadda sanka uga go ilaahay baana wax ku siiyo arsaaqata dhantirayso